halkani waa warbaahinta Raasica Sayr Media oo aad ka dhageysataan barta internetka. maantay waxaanu khadka telefoonka aanu kula xiriiray Caaqil Maxamed Cali oo ku sugan magaalada Baargaal ee gobolka Binaa. Caaqil Maxamed Cali ku soo dhawow Raasica Sayr Media. Assalaamu calaykum waa ku dhawahay adeer waa dhawahay adeer salaamu calaykum waxaan ku salaamayaa 114ka quraanka cadadiisa salaamu calaykum adeer calaykum assalaam caaqil haddii aan ku weydiino deegaamada Raasica Sayr ee indhawaaleba uu ka shaqeynayay maamulka Raasica Sayr waa sidee xaaladoodu adigoo warbixin kooban naga siinaya adeer alxamdulilaahi rabbil caalamiin adeer may magashaa oo ku maqlaa adeer alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay waa xamdi iska leh sidaad ogtahay adeer macaan maamulkan waxaa lagu dhawaaqay sanadkii hore 2011 bishii afraad 2011 ayaa lagu dhawaaqay aad iyo aad ayaan ugu jeersanaa adeer macaan maamulkan waana u ducaynaa adeer wax qabad wanaagsan ayuu la yimid adeer macaan haddii aad eegto deegaanadu waa barwaaqo iskoolaadkii uu dib u furay adeer walow caafimaadka wax yar uu gabaabsi yahay oo aan dhakhaatiir aysan joogin halkan taasina waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka Soomaaliyeed inay ilgaara ku soo eegto maamul goboleedkan Raasica Sayr adeer macaan Caaqil Maxamed waxaad ka mid tahay caaqilada deegaamada Raasica Sayr aadka looga yaqaan guud ahaan deegaamadaas dadka ku nool sidaan warka ku hayno waxay ka shaqeystaan badda ayay ka shaqeystaan maadaama deegaanku uu dhaco meel istiraatiiji oo labada badooda badweynta India Ocean iyo badda cas waa sidee xaaladda tacabka iyo kalluunka iyo shaqada meesha ka jirtay adeer sidaad ogtihiinba weligayo kalluumaysato ayaan ahayno aad ayaan uga shaqaysanaa badaha dhalinyarada subaxdii waa ka laxdaa halkan deegaanada waxay ku tiirsan yihiin waa kalluunkaas iyo maydiga sanadkii 2 mar la sarcado aad iyo aad baan u barwaaqaysanahay oo walow hadda kalluunka suuqiisa uu xumaaday aad iyo aad baan u fiicanahay oo waa ilaahay xamdigiisaas adeer wax dhibaato ah kuma qabno deegaankaasi waxa uu ka mid yahay deegaamada beesha caalamku inta badan ay ku tilmaamaan burcadbadeeda arrinta burcadbadeeda maxaad kala socotaa inkastoo adigu siyaasi aadan ahayn oo caaqilada deegaanka aad ka mid tahay adeer ma maqashaa adeer si fiican ma maqashaa adeer macaan deegaankan intuusan maamulka hadda ka taliya ee Raasica Sayr State la yiraah uusan imaan aad iyo aad ayuu dhibaatadaas ee burcadbadeedka ah noo saameyn jirtay marka hadda adeer macaan waan ka fiicanahay 100% adeer macaan maamulka inkastoo agab haysan waa la tacaalayo dhalintii waa kala hadlay arrimaha falalka xuno awal waxaa looga soo duuli jiray gobolada kale ayaa ay ka imaan jireen dhalinyarada wixii deegaanka ahaana waan ka waaninayo wixii xagga ka yimidna magaalada waa ka saarnay alxamdulillah hadda wax burcadbadeeda ma ay joogaan warbaahinta Raasica Sayr Media marar badan ayay waraysi ka qaaday caaqilada ka soo jeeda deegaamada Raasica Sayr oo adiguba aad ka mid tahay dad badan ayaa waxay shaki ka muujiyaan taageerada shacabku uu hayo maamulka Raasica Sayr marka haddaad tihiin caaqiladii deegaamada waa sidee taageerada aad u haysaan maamulka Raasica Sayr adeer macaan ma maqashaa adeer macaan deegaankan maamul markii la yiraahdo shacabka weeye shacabka halkan ku dhaqan adeer macaan dumar iyo ciroole iyo caruur iyo ragba aad iyo aad bay u taageersan yihiin maamulkan waana u riyaaqnay waxqabadkiisana aad iyo aad ayuu u sareeyaa adeer macaan
annaga sidaad og tahay dowladdii siyaad barre ayaa dowlad noogu dambeysay oo koona waddanka ka talin jirtay raas kamboni ilaa iyo raas casayr sidaad og tahay adeer kadib waxaynu aragnay ma aysan jirin adeer macaan waxaanu ka codsanaynaa dowladda federaalka ee soomaaliya inay deegaanadan saan hore kuugu sheegayba il gaara kusoo eegto maamulka halkan ka jira ee raas casayr aada iyo aada u taageerto waxay la qaban karto la qabato adeer macaan intaas baan ku oran lahaa adeer haddaan ku weydiiyo su-aal in badan la weydiiyo siyaasiyiinta ku dhawaaqay maamulka raasi casayr ee ku aadan maxaa kalifay 13 sano kadib in aad madax banaani aad ka qaadataan maamulka Puntland oo aad horay uga tirsanaydeen haddii adigoo caaqilada ka mid ah aan ku weydiiyo su-aasha maxaa kaga jawaabi lahayd adeer macaan haddii aan kaaga jawaabo arikan waxaan ku oran lahaa adeer anigu siyaasi ma aysan hore kugu sheegay ilaahay hadduu ku roon yahay aniga waxaan ka mid ahaa odayaashii ka qayb galay maalintii la aasaasayay Puntland waxay ahayd dad isir wadaaga ay dowladda ma ahayn waxaynu isugu nimid in aynu badbaadino deegaanadayada marka waxa weeye dadkii baa si kale intay u fasirteen wixii dadkaas ayaa isi siiyey dhulkii ma garata adeer macaan sidaad og tahayna ilaahay dadka bini aadanka qofba meel buu ku beeray marka annaga alxamdulilah deegaanadaynu bay hadda joognaa waynu ku nimcaysannahay maamulka iyagana waa u riyaaqnay adeer haddii ay tabasho jirto ama waxyaabo khaldamay ay jiraan miyaan wada hadal lagu saxi karin maxaa keenay go'aanka aadka u adag ee ah kala go'itaanka aad ku dhawaaqdeen oo ah in aad samaysaan maamul ka madax bannaan wixii la asaasay 1998 adeer macaan meesha tan wax maamul ah oo ka jira haba yaraatee 4 sano ugu dambeysay ma ay jiraan marka Puntland markii la isku imaanayay wadabada lagu heshiiyey wadabadina waa la gees maray dad shakhsiyaad ah ayaa adeer macaan ka leexday wixii lagu ballamay adeer sidaad og tahay raas casayr waa deegaan aad iyo aad u ballaaran dadkiisuna boosaaso ilaa iyo raas casayr goordafuu saad u taqaana ayay degan yihiin alxamdulilah marka waan ka tashanay maamulka fadhiidka ah sidaad arkaysay habeenadan qardho shirki ka dhacay boosaaso shirki ka dhacay odayaasha deegaankaas dhanna xiriir baynu leenahay wax ka jira maamul Puntland la yiraah ma jirto adeer macaan haddaan u soo noqono arrinta maamulkan raasi casayr indhawaale madaxweynaha maamulka raasi casayr wuxuu ku sugnaa muddo sanad gaaraysa deegaanka maxaad sheegi kartaa oo wax la taaban karo oo deegaankaas ay ka qabteen intay jireen maamulka raasi casayr adeer macaan way maqashaa adeer adeer maamulka khayr allaha siiyo si fiican ayay deegaanada howl uga qabteen saan hore kuugu sheegay waxaa ka mid ahaa arrimihii burcadbadeedka iskoolaadkii dhan ayay dib u fureen deegaanakan iskoolaad ma aysan ka jirin sidaad og tahay ceelal biyo laga cabo ma aysan jirin dumarka marka ay dhalahayaan intii laga soo qaada caluula ama baargaal ayaa saxiimad yar lagula soo carari jiro oo boosaato la keeni jiray adeer saad og tihiin waad idaacadaha ka maqasheen adiga deegaanka ma aad kala garanaysa deegaankan umalaynahayaa marka aad iyo aad bayna u dhibanayn alxamdulilah maamulkan inkastoo taageero uusan helin intii karaankiisa ahaa oo isku dayey intii yareed uu joogay 13 sano uu ka talinahayay maamulkan Puntland la yiraah meesha tan aad iyo aad 100% ayuu dhaamaa adeer macaan ma maqashay
waan ku maqlayaa haddii aan u nimaano dhinaca maamulka Puntland indhawaalaba waxaa jirtay in ay sameeyeen isku dayo badan xiriiro badanna ay la sameeyeen odayaasha iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaamadaas si ay ugu qanciyaan in wadajirka Puntland uu yahay wax lama taabtaana arrintaas maxaa fashiliyay baa isleedahay oo sida la og yahay ku dhamaatay fashil badan uu soo kala dhex galay adeer macaan arrintaas inaan ku dheeraaday uma doonahayo sababtoo ah 100 mar ayaa idaacadaha hore uga hadleen sidaad ogtihiinba marka maamulka Puntland waa dad isir wadaag ahaa oo isku yimid oo wax isku darsaday 100 mar arrimaha kan raas caseerna waynu kala hadalnay odayaasha oo aniga aan ka mid ahay waynu u tagnay aflagaado iyo wax lamida waxaan ahayn kamaana soo qaadin marka haddana muhiim maaha ninka ragga ah waa inuu tashtaa dagaankana dad baa iska leh dadkii lahaana waa u tashteen haddana alxamdulilah cid aan u cabanayno ma jirto ilaahbana waana garab galahaya adeer macaan mee maqashaa waan ku maqlayaa maantay waxaa magaalada Boosaaso ka dhacay shir saxaafadeed ay soo qaban qaabisay maamulka Puntland ee dariska tihiin shirkaas oo ku wajahnaa dhaleecayn lagu dhaleecaynayo maamulka Raasi Casayr kadibna lagu sheegayo in wadajirka Puntland uu yahay lama taabtaan shirkaas maxaad kala socotaa adeer macaan shirka halkan baan ka daawanayay cawada TV-ga horan cable la yiraahdan baan u malaynayaa iyo universal halkan baan ka daawanayay dadka meesha isugu yimid qaarna deegaanka maba ka tirsano qaarna dad waxa weeye oo meesha bariiskooda ka raadsado aniga wax aan la yaabahayo maaha marka wax macno ah ay sameynayaan ma leh dad meel intii lagu soo aruuriyay oo deegaankaba u dhalan qaarkood qaarna dhalinyaro oo meesha shaqo ka soo raadsatay oo iska shaqeysatay waageen hore adeer niyar baa tahan u malaynahayaa caaqil haddii aan ka dhex galo muuqaalada ka muuqanayay shir saxaafadeedka waxaa ka mid ah wasiirka waraabka iyo beeraha engineer Brish kalo iyo xubin ka mid ah xubnaha baarlamaanka oo labaduba ka soo jeeda deegaamada aad iminka nagala hadlayso ee Raasi Casayr ma waysan nimankaas u matalin deegaanka adeer maan raalli ahow adeer waxaan ku sheegayaa ina Brish kalo waxuu ka yimid xarigaas iyo America markii horena deegaanka waxba ma uusan ka garanayn inaan reexa mar ayuu iska ahaabaan u malaynayaa marka ninka kale aad ii sheegaysana saan hore kugu sheegay arrinta tan inaan ku dheeraado ma doonayo waa iska dhici kartaa dad deegaanka ka tirsan laba ama hal ah oo meesha ka shaqaysto oo bariiskooda raadsada quutiyaal ciyaalkooda u raadsada oo aan dadka deegaanka iyo danahooda aan ka turjumi karna adeer macaan saan hore kugu sheegay marka wax aan la yaabahayo male waxaan ku arkayay oo kale nin kale oo dhahaan ina fogayana ma tagaana baan u malaynahayaa oo annaga si fiican isku naqaano oo shir ka dhaci jiray Raas Casayr ku saabsanaa Yurubtaas ka dhaci jiray ma garanayo meesha ka dhacay Ingiriiska mu ahaayo oo taageersanaa maamulka Raas Casayr haddana ka soo horjeestay oo aan u jeednaayo oo ninka ragga ah waxa loo baahan yahay inuu qool leeyahay marka inta la raacaya ninkaas oo kale marka waxaan dhihi lahaa ninkaas ina fuqayara ahaan u malaynayaa adeer in uu reerkiisi Denmark baa lagu sheegi jiray deganaayo Denmark buu ka dhiibnaan jiray sida la ii sheegayo haddana Ingiriiska iska dhiibayo soo maqlayo ma garan kare in uu ciyaalkiisi iyo dadkiisi iska waardiyeyso oo ka soo tagay adeer saas bay ku habboon tahay waxaan uu dhex boodahayana iska daaya adeer mee maqashaa adeer maxaad isleedahay way sababtay xilliga kan iyadoo xilligii lagu dhawaaqay maamulka Raasi Casayr ay iminka cagacagaynayso hal sano in xilliga kan la qabto shir saxaafadeed oo ay soo abaabulaan xubno
kasoo jeeda deegaamada maxaad isleedahay way kalifi kartaa xilliga kan inuu dhaco adeer waxaa muuqda waxaa loo diidan yahay deegaanadan horumar baa laga ilaalinayay weligeed marka inay horumarto looma ogolayn marka hadda waxaa caalamka loo tusahayaa in ay maamulkan oo Puntland ka tirsan yahay iyo wax la mid ah walow wax Puntland la dhaho aysan jirin oo deegaanka maamulka Raas Casayr uu ka taliyo marka waxaa socdo challenge ay dhahan afka qalaad oo tartana wax meel cidla ah intii laga soo abaabulay waxay daawadeen horumarkii madaxweyne Dooxa Joog uu gaaray iyo xafladihii loo sameeyay muddada sanadka ahayd oo dhulka joogay iyo horumarka uu ka sameeyay waa la diidan yahay oo wax kale oo meesha ka jira ma jiraan marka Soomaalida isbaratay caalamkana waa ogyahay deegaanka Raas Casayr in uu madaxweynaha Dooxa Joog uu madaxweyne ka yahay marka adeer wax muhiim ma aha annaguna way taageersanahay odayaashii deegaanka hadaynu nahay kulliga iyo contact baynu wada leenahay oo qadka telefoonka baynu ku wada xiriirnaa marka saan ku sheegayay daraad waxaan jiray magaalada degmada Taageer marka alxamdulillah dhibaato ma qabno wasiirka amnigana waa wada xiriirnaa Xareed Ciise Cumar dhibaato deegaanada kama jiraan horumar waxaan ahayn adeer ilaahay waxaan ka baryayaa Soomaalida qulubteeda inuu ilaahay isku soo duwo beenta iyo waxa la wado ilaahay in uu dadka ka ilaaliyo beentaas ay sheegayaan laba malag baa garabkooda fadhiya oo qorahaya wax walba lagu hadlayo qofka gaar markuu yahay adeer beenta haddii caaqil guntii iyo gabagabadii ayaan soo gaarnay maxaad ugu baaqaysaa bulshaweynta Soomaaliyeed ee ka dhageysanaysa warbaahinta Raas Casayr Media gaar ahaan bulshada reer Raas Casayr adeer macaan Soomaali waxaan ku oran lahaa in ay danahooda ka tashtaan oo wadankooda badbaadsadaan ay isku yimaadaan oo dan guud ay isugu yimaadaan dadka Raas Casayr waxaan ku waaninahayaa in ay midoobaan oo garabka isqabsadaan alxamdulillah maamulka yar noo dhismay oo noo iftiimay aad iyo aad ayuu noo horumariyay hadday noqon lahayd xagga diraasaadka iskuulaadka xagga ceelasha marka maamulkooda inay gacanta qabtaan oo taageeraan walba ay joogaan adeer macaan waa ku salaamahayaa adeer iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa caaqil Maxamed Cali oo kamid ah caaqilada sida aadka looga yaqaan deegaamada Raas Casayr oo aan khadka telefoonka ku wareysanaynay isagoo ku sugan gobolka Bina caasimadiisa Baargal aad iyo aad ayaan kaga mahad celinaynaa caaqil السلام عليكم هذا ساجد أيتك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته